السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي باردي سلام يا دمانتين. سو شوق لك لقى واي صوت شيء صار لقى هلا. الدنيا ذي إله هي وحنا الله يابا. ورسع نصها كلا اللي يقاني سينا بكر هاي بعايا. ورتفيل أبو كرو رماه. وشلا يساق لقى دقي. ayaayna yaroo ciise soo sirkhaarintii dabada ka soo kaxeeya wixii ayaha halkan ka wada adar hadaba rabood caayso aamusi mayno saacaduse waxa jecel yihiin inaan dadku ciijo qoro maalintan ku yiri reerihii waa arintoodii waan dhigay farxadda mid walba loo qoys soo galay haddana halkan bay ka wadaan waa deyn weydeen oromadu dhashay isdhageysta awal horeba reer British makaahil baa idinku jireen intiina kala wana qaanay waxa ahaydeen waxa leeyihiin waxa tiraahdan ceeb arab leeyam soo dhig aramar rag la wasay buu leeyahay oo maxkamad la soo taagay miyuu leeyahay arab sheega sacad musow hadal baa diisan leeyahay rag baa iskaga leeyihiin hablahooda ninkii gursaday waa gur anagoo hablacaay mayno laakiin waxa gunta loo yaqaanaa ragga maalin walba maxkamadda Hargeysa laga xukumayo maalin walba dakar saaran lagu xukumayo lider baa u dambeeyay oo laba nin oo Jibriil Abukar wada qabay oo milix sano lagu xukumay maroodigu takarta ku taagan isagoo arkaata dadka kale ku taagan ma arko haddii garxajis ka baqayaan oo caaysan anaga adeer arab baan ana ma caay kartid waxa tay baan ku naqaanaa dhiigayaguna adeer waa 100% ma aamusi naqaano annaga runta ku sheegayna haddii garxajis ka baqayaan ka aamusana waliba committee kugu soo wada qorayaan kugu soo galayaan oo inta committee kugu jirtaa bay garxajis tahay anagu adeer baan arab baan noo haydaarin baan naleeyahay waxaan la yaabanahay kuwa Jibriil Abukar shalay la xoreeyay ee oromada ah Jibriil Abukar ma saaqba ma habara walba ma sacad musa wallaahi wa billaahi wa tallaahi inaan ahayn asal kood wuxuu ka yimi jaarsay oromo shalay buu maxamed cali xoreeyay jabadii afraad Soomaali galbeed baa la oran jiray ama Soomaali abo taariikhda dib u raac shaah milixley wada sidan jiray shalay markaan jabada hayna galbeed ugu tagno ahuuna shaah milixley wada sidan jiray Jibriil Abukar inaan ka yara bulxan la ilaahay dabada ka wada ninka yara Ciise Muuse annagu Ciise Muuse waxba oran mayno laakiin kuwa wada ee committee soo qoraya marna WhatsApp ka soo garaacaya ee arab caayaya ee arab taariikhiisa sheegi arab marag la wasulaha sidina maxkamadda Hargeysa maalin walba laga xukumaay oo halkan kugu hayna xukunkoodii baan ku soo bandhigi doonaa kuwii kristanka qaatay xukunkoodan ku soo bandhigi ma arab kristan qaataad aragtay ma arab khaliisaad aragtay ma arab gayaad aragtay Jibriil Abukar waxa la cararteen oo sida aad moosay inuu nabiyadii soo taahiro hor ordayseen ku bar oo gabiilay arabsiyo ku casuuteen oo hablihiinii Qurayshta la soo sawirteen jaarsadaha hablaha la sawiran ku bar waayo yaa u taqaana in badan baanu halka lahayn ay aflagaadada waan deynina way deyn leeyihiin waa waxa ka heshaan wax allaale wixii dhugmati raga la xukumayna halkaas soo dhigaya hatta hal dhugmati soo heshaan oo nin arabo gay lagu xukumay dib Facebook soo gali maayo waana soo dhigaya wacadka Ilaahay waa deyn leediin boog baa isaaq ku noqotay beerka kaga taal waxaan la yaabay caawadin hadlay ayaa wuxuu gabaygii Maxamed Nuur Fadal iyaga ku caayay rabaa inuu reer kale ku caayo yahay dadkii lagu yiraahdo ka baxa biyaha reer isaaq biiro war margar xajis baa ma arab baa sacad musaha ka baxa biyaha reer isaaq baraxna sheegta adiga haayeen markaas rabtaa in gabaygii sida maanta dudo saacad kale ku caay iyadoo dhanka bari degtiye 100 nin mooyaane biyaha inteeda dhanka bari degtiye 100 kan la sheegaya lima saacadoon sahay anaga run ku sheegina artaan taariikhda haydin ha ka baxa biyaha reer isaaq biiruhu ha ka baxa biyaha reer isaaq baraxna sheegta adiga haay
markaasaad leedahay arab baan caydiisa sheegi arab maxaad ka sheegi hablahay wanaagsanaa sacad muuse gobta anagu caay kari mayno waayo waa kuwii ku baroortay arab maan ka dhasho arab maanu dhaxoy ee sida wanaagsan codka u jiibinayay tiri shalay bahayd ma ninkii hablahaaga ku baroortayna arab maan ka dhasho arab maanu dhaxoy baad taariikhba ka sheegi maxaad ka sheegiba hooyada ayaa aabbahabaa ku baroortay bulxanowe adigu xilligaa orod baad hayd oo jibriil abakor baad hayd oo dagaalkana maad gelin oo sacad muuse oo maad hayn sacad muuse aan isdilayna maad hayn sacad muuse aan isdilayna dee waa gobtaa nuux ismaa xuseen abakor aduma sacad muuse xilligaa hayd jibriil abakor baad hayd oo orod maad hayde ma joogtay dagaalkii arab iyo sacad muuse arab galbeed iyo sacad muuse dagaalkiisii ma joogtay runta maxaa la iskugu sheegi waay orod maad hayd beeraha qodota ayaad ahayd oo jaarsaa oo loo yaqaano soomaali galbeed ama soomaali aboobaa lagu yaqaan car 3 halkeed joogtay markii arab galbeed iyo sacad muuse isdileen halkeed ku unayd maanta nin isku haysataa shaar iyo surwaal lagu xidho xafidadii lagaa biyey hiimadii lagaa biyey humbuuq baad taallay meel la yidhaahdo muxuu ninkii kuu gabiyey muxuu ku yidhi humbuuq baad iska taalloo hiimadaa ku da-ayso halla maanad hayd imikaad hagaagto abtirsiime hagaagsan iyo hayba kugu horreyso haweenkaa laba gaadh imikaad noqotay isaaq oo dhalasho lagu siiyey markaasaad facebookada looga taagnay nimadii reer jibriil abakor isweydii shalay markay arab galbeed iyo sacad muuse isdilayeen halkeed ku unay intaasoo keliya bal isweydii halkeed joogtay markii ninkii reer guuleed lahaa waxaa iga badbaadayay ninkii heblaayo gogoradeeda gala ee sacad muuse ah ninkaasunbaa iga badbaadaya halkeed joogtay bal isweydii war wax shalay toolo dhalasho la siiyey waxaan xusuustaa markii ay dhineen iyo adhi galbeedka la qabanayay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi sacad muusaha kalea ka khajiri jiray jibriil abakor oo oramo u yaqaanay oo dad haybtooda iminka lagu soo daray u yaqaanay iyagoo shaah milixle loo kari jiray shaah milixle sida oramada de ilma ahayn saaqay xiniya haddaa leedin aniga isoo fadhiista annagu ninkaa ciise muuse waxbaba odhan mayno waayo ciise muuse intii kaleba way ka soo horjeedaayo waa nin ciise muuse laga kaxaysto reer ka kaxaysto reer kiraystay waa nin sharcigii laga qaaday oo guri laba inanoo sacad muuse gurigiisa ku nool markaa cuntaa lagu siiyaa hadba waxaa la yidhaahda dhabuu yidhaahdaa waxba odhan mayno ciise muuse ma matelo oo ciise muuse intii kale wataa nadiiftee la yaabane halkaa joogta laakiin kuwa soo diraya ee halkaa wataabada kasoo haday arab waxbaanu odhan doonaa arab maxaad odhan doonaa arab magay buu leeyahy war arab madad dhalasho la siiyaa arab waa biyihii sheekh isxaaq oo britisha sidaada soomaali aboo kamuu iman iyo soomaali galbeed gobyarey baad ka timid iyo humbuuq meel la yidhaahdo halkay haya humbuuq iyo gobyari markaasa halkaa intaad whatsapp soo gasho waan ku dhegeysanayay bulxa ninka la yidhaahdo codkaaga waan garanayaa cidinooma kala sheekeynayso markaad lahayd arab war arab gay male lisbiona male khaniisna male haddaanu khaniis leenahay kuubar baanu beligubadla geyn lahay khaniiskii afrika ugu weynaabaad arabsiya geysay khaniiskii adduunka ugu weynaabaad geysay gabiile araboo beligubadla geynayo ftada saa u ruuxayaa la arki lahaa sacab u tumaya hablihiinii qureysheed baad la soo sawirto oo yutuubada ku yaala dhaqanka aad ku doodaysa iyo wanaagga aad ku doonaysaa waa kee bal isweydii sharafta aad ku doodaysaa waa tee axmed xuseen soo ma xusitay qodha xela shaah milixla waanu ku wada matagnay shaah milixle maanan cabi jirnay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi shaah milixle maanan cabi jirnay iyagoon baanu ku aragnay oon ku matagnay markaa waxaan ku leeyahay malaa waxaad aragtay inaan sanadkii cusbaa idhi waan ka tanaasulay wixii o dhan markaasa arab halkan usoo fadhiisateen dibna hadal ka soo baxaan oo daqiiqaad u ah nin arab oo idiin iman maayo inan arab idiin iman mayso keligay baa idin karbaashaya ilaahay sidii adagaan idinka adkay qoryahan dhagadii keena hadhi jiray hooyooyinkiina waxay ku barooran jireen aramaan ka dhasho aramaan u dhaxoy goormaan xiniya yeelatay ma garaxajis baad xiniya ku yeelatada aflagaadaysaa
garxajis ftadaada kii xoreeyayba hadabaha ina koobur maalintii ina askar maalintii Cabdilaahi Ibrahim koobur la baxayay 7 nin oo kooda korneyl oo Sacad Muuse aba si ay taagna si ay hoganayo jaarsaad moodo oo dalka iyo dadka toona lahayn markii haashka in askar sida loogu baqbaqtiinay laha talaya reer Sheekh Saxaaqay garxajis baa ka diiray maxaad uga diiri weey isweydii maxaad beenta u sheegaysaa وما أنت الحين يا لطي شلay bay ahayd markii shanaad la abuurayay Jibriil Abukar Saaq laga dhigayay gaarigii suuqahay oo reeyay idin siiyay isweydii Saciid Guuleed bal habar Usmaan u disin gaarigii labaadna ma aanu idin xashneelo Arabi markii leedin abuurayay Saaq leedin ka dhigayay bal isweydii ma noolaan lahayd haddaanu jirin haddaana garxajis iyo arab jirin saxamso ma noolaan lahayd habara walay ma noolaan lahayd maalintii la berbere la gelayay 3 gaari baad wateen labadan aadan ciise wato midna maxamed ciise wato 3dii gaari baa inagii madheera kaga tagnay 17 gaari ee berbere gudaheeda isku shubay labana habar jeclaan 15 garxajis iyo arab baa watay maxaa lagu waay waadigii berbere noo raaci waay madheera nagaga hadheen isweydii bal ما أنت الحين يا لطي ما أنت اللي وين واكي عربي قرحت تكون مسنابة إيه طول كي الحرية مرير يا شيخ الصحاب وفقش لحية اللي بتشرون ديك هين أبدال ربطه لأنت تعربونه حماس درجولي لفروق حوالته معروض من مجاله عنكو عمرين وفقش لحية اللي أبتشرته dhagaweyne markuu muusanaabay baan aduugay oo tolay arabiga garxajisoo tolkay la xoreeyay reer dhanba faqashka haystaa u lahaa ayaana ahayn yahay reerkii la xoreeyay yahay haayeen been la isku sheegi maayo wacdi ilaahay waa iga dhab tuulo faqash dhexdeeda ah oo aan saad ku camireen ma jiro idinka leedin xoreeyay ragii idin xoreeyay aad reeyahay bal isweydiyo taariikhda raac ragu dhagaweyne ku muusanaabay yahay ولها وريارهن قبيل لم بيفقشي حيستا يفقشوبي اي لا خوريا يهاين تلك adiga haayeen kuwii faqashaysatay hal gaari bay habara wal ku lahayd berbere markii la galay gaarigii 20aad ee tirisaba kaaba ku lahayd 18 gaari ee berbere isku shubay 22 berbere loo qaybiyay 3 ciise muso madheera nagaga hadheen gaariga Cabdiraxmaan Geeya waday jiibkii kale ee foodhigiiba 18 berbere isku shubay 15 garxas siyaara baa watay labana habar jeclaa watay midna Sacad Muuse watay oo qolada baa Sacad baa watay maxaa leedin waay maalinta haddaas asan maalinta la galay hada arab waxa badda horrib maxaa lagu waay gabiile laba jeer baa la galo labadiiba arabiga garxajis ciidankii koodbuur baa galo xasan galayo imika Hargeysa jooga gale maxaa leedin way maalintii gabiile la galay ee dumarka gogoradooda ku jirteen markii lagu haye la galayay Seylac la galayay Caasha Cad la galayay lagu haye la galayay halkee joogteen war miyaan 3 gaari la idin soo dirin ko biyo guuraya la xadka kuwa caaysan ku iftadiina xoreeyay miyaan ahayn inta la idin ku yimi biyo guura miyaan la idin oran kale dalka u xoroobay ما اللي يدير إلهه وحتان بيك الشيء إلهه ونعظم حاجات شوكتين مركو عيدا كي كوبور لك هاي حسن قري قبصدي وعاش عبد قبصدي وعيالقال قبصدي وسيلع قبصدي وتقوش قبصدي ولك هاي قبصدي ولي ما تقوش اللي قسي دايي نيكا شينا لنامك حلي بانك لك هاي كاي جبريل أبكر ريح حريت شينا iyo 12 nin oo Jibriil Abakar oo u xiran garbaduub markii laga sii daayay arabiga garxas ka sii deynay maxad uga sii deeyay ragaaga 34 nin ee raaga bidaar ku jiray meedkoodu toqoshi sida u yaalay in faqash kala hadnay ee tariihiina in raaga bidaar ku jiray faqash maxad uga hadhig weyd maxad beerta la isku sheegaya maxad faqash uga hadhig weyd maxaabiistaadii baanu soo furano meedkaagii baanu faqash kala soo hadnay maanta maxad xiniyo yeelan weyd intaad maanta yeelanayso
maxaa beenta la iskugu sheegaya ma maanta laabta la garaacaya Somaliland 91 halkee laga xoreeyay yaa xoreeyay isweydii ciidan saxad habar awleeda meel ma galay bal isweydii beenta isku sheegaysa بربرنا كودبور باه هogaaminayo galay intii dalka laga xoreeyay caasha caddo ceelgaal lughaya saylac toqoshi lawya caddo ciidanka koodbuur baa qabsaday halkee baa ku unaydeen ee joogteen hadii laga tagi waayo maalintii dila 12 taangi ciidanka koodbuur qabsadeen war miyaana shacbigeedii ka hortaagnin samaroon miyaana ka hortaagnin waxaan sii xusuustaa jibriil abakor ayna yaro 12 jir u fuulay wallahi waa ka yar isaga jir baan maleynaya in ilaahay uu xariistay ciido galo khadartay tan la yiraahdo qori ku qabto ka kacay dhinaca laabaha ku yaal iyagaan ilaalin gaar ka hayn wuxuu yiri mataqa ahuun anaga waa kuwa iyagii sidaas un bay lahaayeen shacbiga samaroon baad rabtay inaad xasuuqdan ka hortaagnin oo ogeyd ma maanta xiniya yeelateen ilaahu faqash may timaado ninka labada dhaban barriga ku dhufan jirtay baa haydeen sida hoogan jiray sida dumarku ma bay hoogan jireen si kala liidata hoogan jirteen nin sheekh saxaaqo inta gurigiisa sida albaabka loo soo garaaco la yiraahdo adeer gabadh qurux badan baad qabtaay ay soo dhaafana ku qabaye oo ku qabay idinka la haya maxaa xiniya uga yeelan weydeen war inta maanta rag iska dhigaysaan maxaa maalinta xiniya u yeelan weydeen la idin lahaa dumarka qabtaan soo dhaafa ku yar ee lagu wada qabay qorjano ee faqash ku wada qabtay dib u raac gabayadii hadraawi ma lixlaa godka u gala gibil bal dib u raac haddaan lixlaa ugu maanta la soo haray guusha lixlaa damacyadiisii dalab aadash dal kale aan ku dhaartay furada oolankiisii gurayna dawaariya diricina saleebaan dal kale aan ku dhaartay موسى ما لا شيء موسى بل قبيدي أسلام ودرسوا قاضي ميلو كجري شيك ركلوا سعد مصيبة وكتير عنو ضفير مايان مجاهدين تيسلم قعمة ديرا كتير هذا الشين أكتير وضفير مايو وما اللي حلا قد كوا قالي قبل هذا الشين يجيسي محمد علي مجبود مدوبة قلت هلا يقرش هاي اللي قد يسينا هاي بقرار يقولون ما قوة ميا قبل كوي يقعمة ديرا عليو weerar gabadhi ciisi iyo gacmareero cali oo miya gobolka weeye gal lagu xasuusta anigu mujaahidiintii ma dafirayo kuwii maca Sacad Muuse laakiin saddexdaan in baa laga sheegay waadan shiine iyo gacmareero mani kale laga sheegay baad aragtay anigu nin isaaqo arabaan haddaan garxajis jirin waynu goblami lahayn haddaan adigu dafiraysa markii fitadaada xoreeyeen anigu dafirmayna waa tolkayo waa walaalkayo ilaahay baa nala dhaliyay haddii aana jirin adeer maanaan jirneen maalintiina koodbur harka cad kala baxayeen askar 70 nin oo Xuseen Abukura sida u taagnaa wada kornayla oo habara wala oo nuux baastahaas imika ku jiray wada hebel midhan oo imika Soomaaliland wada korneelka baa ragi taagnaaha ninka soo sheegay in askarna Sacad Musuuha askar laba dibli loogu xidhay dooxa heerar maalin ilkuhu ka daadshay iyo sigaarku ku dacsay guudkiisa gaanintu sida haash u baqtiyo baaskoolta afka kaga dhuftay wali laba ili ka riday ilkuhu ka daadshay sigaarku ku dacsay guudkiisa iyo faanku maxbuuskii kaga dul geeraaray sheekhi la duugiyay isaaq maad u diran qayro bal inay ku sii deyn karaan keen durriyadaada markuu gaani sida ku lahaa keen durriyadaada halkee joogteen sidaas u dhinac tumnaydoon oo diiri weydeen dhadig ilaa dhadig meediko kala la idin tirsada dhanka ay xigtaan bay isaaq dhowrimo tahay waa diiri weydeen markii haashka sida lagu baqtiinayeen askar uu lahaa tolo ayaa reer sheekh saxaaqa maxaa u diiri weydeen 70 korneel baa ka jirtaan garxaaji soo dhanina koodbuur baa ka joogo ka diiray ilkuhu ka daadsiye sigaarku ku dacsay guudkiisa iyo faanku maxbuuskii kaga dul geeraaray sheekhi la duugiyay isaaq maad u diran qayro bal inay ku sii deyn karaan keen durriyadaada doqon lama dugsadiyay nimaan hilibku diirayne dar kale oo ka sii xigayba way dacala joogay 70 inuu habara wala dhinac joogay
doqon lama dugsadeen imaan hilibku tiireen dar kale ka sii xigay way dacla joogeen soo intii Ibrahim jiir damqaday dirir umu faydan iyo tayo ma doona sibla dananaya taarihi birjeexadooga deerkii lagu meershay soo intuu dalqiina halku doona kama gaarin darku gaani soo diray iyo gaadhis daba jooga baduu dilay baduu daadiyay iyo baduu dictor siiyay iyo barbaqihii duurka la xulay soo durba ma ahaan geesigii daakhilkii jiifay jeelka gudihiisa soo daqiiqad kala muu dhex bixin duuca si xiratay dab baxaya hala suuni reegi kala dulboodaaye danankii kood buurale soo dogo ma noolaynin dayax nuuray soo muu ku noqon dunida guudkeeda doqon lama dugsadeen imaan hilibku diireen dar kale ka sii xigay buu dacala joogay 70 habara walaa wada korneyla saa u taagnaa oo wada foorarsado waliba badna sacabka tumayay markii haashka lagu baqbaqtiinayay ma maanta xiniya yeelateen oo rag noqoteen ma maanta rag noqoteen isweydii bal anagu ma dafirayo nisha sheekh saxaaqa libintiisa gacma dheere iyo axmed dhagaxba ma dafirayo mujaahidiin bay haayeen laakiin markaad maanta islaam taariikhda sheekh saxaaq ku dul samayso adigoo dhadig ahaa isaaq ugu hooseeyey waayaan daro maalintii dalka la soo galayay ee 1988 dalka la soo galayay burca ayaa hogaaminayay axmed mire cadaad ayaa hogaaminayay xuseen dheere madheere ayaa hogaaminayay maxamed cali waa rag ilmaadereedo ee rashaan oo ku faanaya kama xumi oo cuqdadiima hayso oo meehi orom imika dhalasho la siiyay oo dafiraya meehi anu waan ku faanaya waxaan maxamed cali waan reer sheekh saxaaqa waxaan idhaahdaa lixle waan reer sheekh saxaaqa xuseen dheere waan reer sheekh saxaaqa ibraahim haragwaafi waan reer sheekh saxaaqa anigu waan ku faanaa adoo haddaad isleedahay maanta taariikhdooda aas ood reer sheekh saxaaq isleeda ka faan annagu reer sheekh saxaaq baan oo ninka reer sheekh saxaaq ee soo halgamay ee shacbiga reer sheekh saxaaq soo halgamay waanu ku faanaa ilaahay naxariis jannaha ka wada waraabiyo ifku xaamudaariyo dar kalaan ku dhaatay maalintii burca duushay ama intii qaaxa la joogay waa kee reerka reer sheekh saxaaqa ee 53 nin iyo 2 korneyl meydkooda meel laga wada qaaday sheeg bal weli faqash ma soo weerartay deegaanka hawdka sacad muse maalin dagaalka muu dhicin qurac raamaale xarshin masaajidka dibiile faraweyne maalin dagaal ma ka dhacay dhulka deegaanka u leedahay hawdka maalin dagaalka muu dhicin dagaalkii gabarteetay burca duushay korneel lixle dheemantii asanan baa ku geeriyootay xaamud oo korneyl ah ifku xaamud daariya dar kalaan ku dhaatay adraawi lahaa iyo 53 nin oo la faamiliya ku geeriyootay oo wadada garxajisa ma maantaan dafiri karaa waa tolkay waan ku faanaa waa rag reer sheekh saxaaqa ilaahay baana ila dhaliyey kii caraan carray ma ogeyd kii caraan carray ee 720 nin arab ku dhinteen ee 400 ee fiqashta caraan carray saa u taadsamay ma dhegeyst ragga ay fiqash weeraraysa maalintaa kii caraan carray ma joogtay ay lahayn sheekh sancaani awliyaana laysay kiliila ka gabiyey basaaskii kuwaday baan xeryaha baalla kaa marin basaaskii kuwaday baan xeryaha baalla kaa marin guutadii kamay baqana dhaqsay ugu bilaabeen baallahay u seexdeenay basar u toogteen boqol bay bartii kaga dileen burucyo waaweyn wakaa waraabihii barqaday baahiduu qabay isaguwa baryuu sii wadwadii baahiduu qabeeye waa waxaan isaaq tiriis ku soo baxay barin xuseen oo berberaab u haystay iyo dhulkii baawarka lahaa ee baruurtii hargeysuu ka yimid balaxsigeed iyo tan baabu dhaciyo boob iyo baadhasho u yimide bagaa lagugu dilay keenadaa nooga barateene
intii qaaxa la joogay ma meel aad ku unayd baa jirtay faqash kuma bay tirsan jirin adiga dhadig bay ku taqaanay xabada hanagaga khasaarin bay oran jirtay faqash garxajis iyo arab iyo habar jeclo hayaha ah saddexdaa reer u bela dagaalamaysa war la seexan maayo xamso kaadi hadal bay kala deysan weydii war maanta markaad adigii faanto eed arab iyo garxajis hayso ilaahay baan kugu dhaariyay miyaan aakhirta banhayn mashruuca wajaale maalintii la gelayay ee lahaydeen arab oo xabadda naga horidma been baan sheegaya oo ka Ismaaciil Shaqale waxay boqolaal baa haya Cabdilaahi Awaadan oo imika golaha deegaanka oo araba oo gaari jiiba wada leeyahay arab oo xabadda ugu horido kaas ugu horid ila falka taqaaneen inta faaligteen oo ina usuubiyeen kilo jiray oo geed halkaas iskula baxdeen oo 100 faaligteen meesha la yiraahdo geed balaad ayaa tahay gaariga arab xabadda ugu horid halkee joogteen dhulka degta dib isku weydii waa lafta boqorka miyaanu ciidanka sancaani gelin gaad miyaanu ciidanka sancaani gelin waa dhulka saxad musaddigo gabiilay ciidankii koodbur arabiya garxasi laba cisho miyaana ku laba noqon cadaada miyaana ciidankii saddexaad ciidan gala gelin dhaboolaq miyaana saddexaad ciidan gelin laba taangi kala harin garka yogolka miyaana ciidankii sancaani gelin oo laba beebeey gaari faa kala harin sheekh moode sancaani maalintu kale maanu gaari suugo areela kala soo harin hay halkeed gashay waa dhulkii sacad muuse dhulkaasi oo arabiya garxajis ku dhamaadeen halkeed joogtay bal isweydii adigu intaba goob joog baan u hayaa isweydii sheekh moode laba jeer baa lagu noqday Cabdilaahi darawal kalimka Hargeysa kula jooga galay gaarigii suuga hay areelka dhabara soo kaxeeyana waa laga soo haray gaari beebe kaarihina waa lagu gubay gaarigii faahay saad ku saarana waa tii lagu gubay 220 qorin ciidanka saacana way ka soo qaateen waa dhulkii sacad muuse maxad qori gola hadhi weyd de markaan galiyaad waxa ka dambaad joogto dhadig baad ahayd ana ka horeeyay oo kaala horaray dhaboolaq maalintii qolada ciidan gala labada taangiina kala hadhay ciidan gala iyo saxaaq labada taangi ay la hadheen 12aad iyo 3aad iyo gaariga joogtay isku maalin bay ahayd arabkana garka yogolkay galeen ciidan gala iyo saxaaqna dhaboolaq bay galeen arabkuna laba beebeeba la soo hadheen iyo gaari fa halkee joogtay dhulkii sacad muuse haaye markii garxajsi arab baaburta ay wala hadhiyeen halkee joogteena ku unayde ijaara maalintii ciidanka koodbuur faqashtu ku jabiya halkee joogtay gabiilay oo laba jeer lagu noqday oo maalina 17 garxajsiya arabi ku dhaawacmeen 9 ku dhimatay maalina 22 ku dhaawacantay 6 ku dhimatay halkee joogtay adeer xasan gani oo ku dhaawacmay imka Hargeysa jooga taliyihiina wateeha halkee joogtay waa dhulkaagii taliska joogtay oo marka raggu dhulkii qabsadaan ayaad adu biliqada soo doonanaysay markaanu anagu dheregno marka naga dhacaad soo doonan jirtay deegaankaaga wixii technical laga haray anaga kala hareynay haddaad xiniyeeleed maad dhulkaad u dhalatay kala hadhi technicada waati kolba gaari lagu oran jiray nasiye suugi iska rugada saarnaa afraad wadatay waa suugiina midhiq la oran jiray ka arabe miinada isku xidhay maalintii la haray baa afraad baa la siiyay idinka la siiyay jiibkii bacood wadayna idinka la siiyay arabi kii Siciid Guuleed wadayna shanaad baa la siiyay kii xaashinale wadayna shanaad baa la siiyay markay garxajsi arab technicada ku siinayeen maxaad ula hadhi weydii areer baasha maanaan dhimana waanu noolnahay weligaa iyo allaheedba lama sheegin dagaal cidaad ka horeyso annagoo deegaankaagii kuugu nimid baa noo jirtay arabiya garxaji raaca hore gala raaca dambe gale meeshii oo la qabsaday oo baad ima jirta adigoon qofba kaa dhimanin inta ku dhimataana arabiya garxas bay ahaan jireen inta mujaahidiinta haddaan been sheegayo mashruuca wajaale gaad
lafta boqorka gabiile kalabaydh ijaara fakin aburiin halkii hamish wilson ilaahow ninkii warta qoladan garxajisi arabe ingiriiska joogta bal ninka la yidhaha hamish wilson waa ninkii ciidanka koodbuur iyo sancaani iyo arabiya garxajis buu la socon cajaradahana uu duman jiray ciidankana xagga hore u ka raaci jiray ninka xabadda u horreeyay riduu la socon jiray waa ka ingiriiska jooga balugmatigiisi ka soo qaado oo soo bandhiga cajaradii isagaa duube aburiin cadaado dhaboolaq garhka yogolka sheekh moodhe raamaale bal waa dhulkii sacad muuse ee markii lagu dhimanayey ilaahay baan kugu dhaariyay inaanan been sheegahayne inaadan halkee joogteen caabudlaha maalin gawaadhida shicibka u geli jirteenoo maatida biliqaysan jirteen dee reer sheekh saxaaqoo la quudiyo tignika lagu quudiyo tignikadii dhiigga iyagu kusoo daatay ragga arab iyo ragga garxajis kusoo madheen baanu idin siin jirnay abaallaawayaal keeneen baatiin hase ahaatee aanu ku siinay kama anaan xumaynoo dee tolkayaad ahayde laakiin waxaanu diidna faankaad maanta la timid gayigo horaad ka soo gashee waan lagu galgalan oona soo galgalan geesiga hadeer golaaftamo guna waana jirin ninkii lagu yidhi yuuha isweydii ilaahay baan idinku dhaariyey gayigo horaad iska soo gashee waan lagu galgalan oon soo galgalan geesiga hadeer gayigo hore golaaftamow guna waana jirin golaaftankii 92 baa laydinku yidhi markii dalka xorooba golaaftan bilowdeen iyo gawaadhi reer soo iibiyaan kurka jartaan maxaa faqash wala hadhi weedeenta gawaadhida soo iibinaysaan ee saaq u iibsanaysaan gawaadhida taxiniyaa kula soo hadhaan baa idinku jirin maalintaasaa laydinku yidhi geesiga hadeer gayigo xoro golaaftamo guna waana jirin raggii rag ahaa adeer faqash buu kala hadhayay maalintaas raggii rag ahaa faqash buu kala hadhayay bal waxaad isweydiisaa haddii maalintaa rag xiniyala a ahaydeen nin habar awali ma ku dhintay meel garxajistego ama meel arabtego oo ma ka dagaal galay dee maya idinkaa laydin quudinayo ragga iyagaanu idinku quudin jirnay boqolaal qoor dheere oo geysi ayaanu idinku quudinoo deegaankiina ku dhintay maantaa markaa xiniya yeelatay weligee reer sheekh saxaaqoo dagaal sokeeye ku faanana habara walbaan arg ninka ragga adeer dagaal sokeeye kuma faano xaasha wuu ka xishooda dagaalkii 92 ayuunbaad tidhaahdaa dagaalkii 92 aanu garxajis la galnay war garxajisna lamaydaan gelin garxajis inagoo isaaq oo dhan oo maryaalooleynu 94 la galnay markaasuu 75 gaadhi oo habara waleeday la hadhay garxajis ood maalin walba mid ka soo cararaysa ood maalin walba 5 ka cararaysa markaasaad 92 leedahay anigoo ciise musaaba garxajis iska celiyey inagoo isaaq oo dhan baynu iska celi weyn ilaahay marka war waa tolkeena dee tolkaa lama xaqiro ood maalin walba gaadhi ka soo ordaysay anigu gaadhi suugaan watay markaa burca la geeyey hadalka lama gabado wallaahi gaadhi suuga ayaan watay ninkaa dhabbaro la ydhaa xilligaa sheekh moodho suuga soo kaxeeyey baa darawal iga ahaa ana ridan ka ahaa anu gaadhigii waan la baxsaday anagii dhabbaro waan la baxsanay dhulbahantaanu ka soo iibinay laascaanood waanu idhi anigu nisha sheekh saxaaq anigu mujaahidiin baanu hayna xabad ku ridi mayno waana la wadoogiyo wax caddahe ina muraadkan maayarkina noo dilaal buu ahaa markaan suuga soo iibinaynay run baan walaahi idiin sheegaya dilaal buu yahaa ina muraad ku anu nisaaqa xabad ku ridi mayno haddee marakanaacad dee mee waa iskaga xidhan tahay meeshane waddankanaan joognay markaa waxa weeyaan dee inaad ergu inagii sogeyne maalinba gaadhi lagaala hadhiyey maalinba gaadhi war ma garxajiskaynu inagoo isaaq iyo daarood iyo samaroona iyo gabooye aynu burca ka saari kari weynaad leedahay anigaa ka adkaado ciise muuse bal waxa caqli xumidaada eeg ciidanka qaranka 75 gaadhi baa lagala hadho
75 gaari ee garxas kala haray ama gubay 72 bay lahayd beesha habarawal والله وبالله والله يا سوقك سيدوديه waxaan sir weydiiyaa ma taqaanaa waxbaan arkaa moogta wax badan baan isweydiiyaa anigu waagii aflagaadada horta iska joojiyeen sanadkii cusbaa waanigii soo joojiyey nin ciida galaaba maalintii wuxuu habeenkii soo qoray waaniyo mala waaba ninka imika ku jira talo ciida galaama soo habris wallahi beegat waa ninka Cabdirsaaq la yiraahdo weeyaan baan maleynaya ninkii soo qoray inuu Cabdirsaaq ahaa baa jeclay ninka Cabdirsaaq ku qorantay inuu ninkii soo qoray ahaa wuxuu soo qoray Cabdixakiinow habar awliya aamusiinaya waa runtiisa caawan arkayo kan yara Ciise Muuse ku soo qabtaaba sacad muso haayo arabiga garxis buu caay oo markaa ma waxa idinla tahay idinkoo caytamayana aan aamusi ma idinla tahay oo caydeyn doona anaguna war waa leedin karbaashiya idinkii dalka haystay ee ummadda isku wadi lahaa ayaa xumaan u horseedaya waligay dhaqanka maan arag reerka dalka haysta ee madaxweynuhu ka soo jeeda ummaddu isku wada ummaddu masaalaxa kula dhaqma ilmaada reer runbaan anu walaahi idin sheegaya ummaddu isku wada war madaxweyne aanu nay bal waxa aqliga xumidiina idinku eega madaxweyne ma noqonaya musabixi marka adeerka madaxweyne ah beeshu ka soo jeeda ummadda isku soo jiidaa wanaag ka shaqeysa waligay maan arag reerkii u horeeyay xumaan ka shaqeeya ahaydeen ee haddana leh inankayaga madaxweyne ha la yiraahdo war madaxweyne ma ahna calaatullah caleek cirka geeya handaraabku keenay marka waxaan sii xusuustaa oo la yaabo isweydiiya laba nin oo imika Muuse Biixi laba fayflo wada laba gaari oo Langaruusel 4.f ka 4f ka kuna yiraahdaan ayay laba gaari u wadaan laba nin labadaan nin waxay wadan jireen laba suug qoriga suuga la yiraahdo waa kan aanu wadan jiray ninka xabashiga wuxuu yiraahdaa Etoobiyaanku suug alle iskaabir alle ilaahayna wuu jiraa suugna wuu jiraa buura ruushka ninka la yiraahdaa ku dhaartay suuga adoo gaari suuga saaran haday ku helaan 20 tiinkii waa difaacisa waa marka ninka tagay suuga wato 20 tiinka biyo ka banmaysid 160 waxaan ku 320 kaba saas u wareegaya sida akeega mar ugu dagaalamaysa labadaan waxay wadan jireen laba suug binti tiri ni wuxuu wadan jiray suug sabax saaran iska rogo sabaxa nina wuxuu wadan jiray suug TR gaariga TR ka farqiiqla loo yiraahdo Mareykanka ah waa qoriga suugiina gaari la saaro waxa ugu cawaansan farqiiqlaha in adeer labadii ninba labadii suugo istaaran oo ram taahaya ay ciida galaga soo yaacay harcad hadda iyagoo ku dhex jira 750 tignika oo maryaaloolkiya anagoo ah ayuu labadoodii ka soo yaacay war maxay idin haray labadiiba horta Muuse xiniya uu biday waa labada suug ka soo cararay war maninka suug ka carraa gaari yar oo dhishka maanta wata oo joogaya ilaahay baa ku dhaariyay suug binti tiribu ka soo carray suug alle iskaabir alle ka Etoobiyaan ku dhaartaan suugna waa jira ilaahayna waa jira war maninka laba suug ka soo cararay ayuu Muuse intuu sidaa u dhex maray tolkii ayuu labadaas kuwaas ay difaacaya hadda laba suug bay harcadka ka soo careentoon iyagoo ku dhex jira 150 tignika oo isaaq daarood samaroon gabooye intaas oo dhan oo maryaalo iyagoo ku dhex jira ay ka soo cararayeen
muusana kuwiibuu waday ayuu geesiyin bida ilaah dee nin busitay baa labada gaadhiba ka rogi doonaa ila ilaahay baa runta jecele raggu waa isaqaanaaye raggu waa isaqaanaa marka runta tagtay ee qaraaraato adee rag baa gaadhiga saaran yihiin oo qorigu saaran yahay aamini waayo ka lugayo carara oo nafi orod bay kugu aamintay idhaahal raggii lahaa nafi orod bay kugu aamintaa ee gaadhiga afar lugoodka ee suugu saaran yahay aamini waayey anuu maanta halka ka faanayaan ma garanayo maanta halka laga faanayo wallaahi ma garan karo يعني أفكر ويدري هالبدل ما قرسان ده هذا لنا وطن مويه إلهي بان كبري وإلهي بان كبري أنا طقار شيء وما لنا دحليس إلهي كما بري إلهي بان كبري ما أنت الشيء نصور سقالي تبن كتري قوتها برور حطانين أركتان كبيهن وعيقوش ده مركع هذا هو سقالي تبن كتري قوتها مكجوجة إلهي وش شيء نصور إلهي سومالي نصورته بالحال إنه تري قوتها أركتان bal nin gaari saaran in aragtaan oo reerkaas nafi orod bay kugu aamintaa wallahi ana wajaale ka sokeynahay wajaale inaana ka sokeynahay baa guuri waxaa imika darajada seeta hal minid gudahood baa darajada lagu qubi lahaa balaaya taliya guutaa balaaya tignika ka kaxaysa hooyo nuurow waxa uu kelmadda halhaysiga iyaga lahaa kelmadda ina hadal galbeed wad hooyo nuurway hooyo nafta kula orod boolan jireen yani wallahi maanta hadii shay ina soo weeraro inaanay gaari saarnaanayn oo aanay taliya guuta noqonayn oo aanay darajo yeelin war raggii difaacayay markay sidaa iskaga caayaan ciyaar raggii difaacayay ee ay dhabtooda ku jiifeen ee ay madaxooda ku daaqayeen ee cududooda ku daaqayeen markay maanta sidaa ula hadlayaan ay waxaan ku orday kibirka u wadaan talo yeeshay ka difaacaya ilaahay waxaan ka baryayaa Soomaaliya iyo Puntland oo wada socda oo 500 oo tiin ka wada in casarkeena soo weeraraan biri hatta aragtaan Sacad Muuse oo nin habar awalo darajo xidan hatta aragtaan maalinta in loo yeeri doono dhaga weyne waa loo yeeri nin kale ma jiro dhaga weyne waa loo yeeri nin kale habar awalo darajo xiran hatta aragtaan maalinta kabihiina waxay ugu rida oo dhaga weyne ahayn war adeer anagu ma faanay xaqiiqdan ku dhaaranaa xaqiiqdan ku hadalnaa miyaanu ku xilqarnaa ma been baanu sacabka ugu tulnaa ma Muuse mujaahid aanu ku nidaahnaa been baanu kugu tulnaa weligiiba aslan taliya ururka mu noqonay bal waxa igu tiraahdaan ururkaas Muuse taliya ka noqda Cabdiraxmaan Tuur baa abaalkiisa yaqaanay markuu arkay Muuse inaanu halgagalahayn bilgudlo talis kasta ugu meersanay sida maamqaata وكلبا ciidanka taliska intuu shiriyo wallahi inaana beenidii sheegay Muuse cajarada ma iska soo duuba maartay Muuse ciidan qudbadeenay waa halkii ma faran baa war taqaanaa ciidanka taliska balgubadle ilaaliyo ururkaas suubixiintu banaanka u soo saaro cabtiliska duub jirinta koor qabalay soo xidho wallahi cadiib markuu Cabdiraxmaan Tuur arkay inuu xeradan uu ku meeraystay ila meerayso uu xeradii ururkan yar kulba cajarada iga duuba kulba cajalad iskaga duubo oo ku waashay ayuu Cabdiraxmaan Tuur markuu arkay ninkan inaan faran loo diri karahayn ayuu wuxuu u magacaabay xiriirka qaxoontiyada afraad ma isaga watay afraad dad maqashay den adeer mujaah kaagina xiniintaad ka saaraysa fulaygiina waxaad siinaysaa libin xageed ku lowday maxamed cilmi samatar galaal وطليه أفراد هالكيت كل لودي أبي بلقح وطليه كحيين كي أيوب هالكيت كل لودي أفراد ما وحوطك أنا نسعد مصلها إذا صعد موسيقى كارو لها يمشرو ونحن إذا كلا الله بعتنا الحين أفرادنا واحد عيد والبا مع الأيوب إذا كأيوب كان حوق كبضنا شنادنا واحد
ciidanka turjecla inay hebel maraykan baaba taliye ka ahaan jiro turjeclaa ma waxaad ku haystaan ciidanka lahaydeen idinku oo gutooyinka lahaydeen muuse daas haysan war axmed dhagax abiib dhagax baa taliye ku-xigeen ka ahaa cilmi samatir baa watay gacma dheere ayaa taliye ku-xigeen ka ahaa markii hore markii dambe uu dhinteen axmed dhagax waxa qabsaday abiib dhagax markuu dhinteen cumar toori baa qabsaday ciidanka gebigiisa taliye guuta ka noqday nin sacad muuse abaa loo dhiibay gabax ninkii la odhan jiray waa kii faqash isku dhiibay hadhcad halkee joogteen maalintii dhaboolq lagu dhiibay waa kii hadhcad is dhiibee gabax oo bahgobi hadhcad waa kii faqashta isku dhiibay isagoo taliyihii afraada taliyaashii baa is dhiibayay war muuse biixi iyo afar korneyl muuse biixi iyo cabdiraxmaan xuusho miyaan laga soo celin waar aga bar iyagoo jabuuti isla gal markuu dagaalku 7 cisho Hargeysa ka socday iyagoo aga bargelaya miyaan niman Jibriil Abukar ku dhaaran soo celin oo qori isla hortaagay waliba iyagoo 5 korneyl taariikhda soo bartaadeer jiida meesha ka haynine taliye guutay saaqo isdhiibay ninka jira oo faqash isku dhiibay markaasaa maanta aad hadlaysaan weliba ka war waar birsigaaran cabiyaan kala birsigaaran dee ummadda kala xishoonaya anigu sida dadka litirada qaar baa litirada la soo hor fadhiistee anigu markaas sigaaran kala xishoonaya markaa waxaan leeyahay cumar toori oo ciise musaaba taliye guuta ka ahaa markii dambe taliye guutay sacad muuse noqon kari waayeen nin baa looga dhigo warkiisa dhiibay ayuub iyo ciise muuse taliye guutayaal ka soo maray siduuna cilmi galaal aidkii u dhaawacmay habeenkii Hargeysa la soo galay weligood taliye guuta kamay noqon been baa isku haystaa ciidanka 20aad la yiraahdo nimanka makaahile bahasa cadee bulbusha leh adal ciidankaas wax ran jiray ran iyo nimanka bahasa cad la yiraahdo anu taariikhda baan ku sheegayaa taariikhda bakeen orodoo mujaahidiinta soo kaxay aniga halka ay soo fariistaano waanu doodinaa car aniga hayla doodaan car hadii xiliyay bal inta isku tagtaan soo xulo oo mujaahidiintiina ugu waaweyn taqaanaan bal ii keena aniga Hargeysa habeenkii la wadeen Ismaaciil Leewar iyo laba gaari baad wadatay laba gaari 12 gaari Hargeysa la galay laba wadatay bal car aniga mujaahidiintiina ii keena hataa xiniye leedihiin isaaq wuxuu iskugu tagay dhulka sacad musadego wallaahi inaan been sheegahay ilaahow nacdal xilli dambe joogaa inaan been sheegahay laakiin kama xumino tolkayay haayano de waanu la xoreeyeen oo kama xuminba laakiin waxaan diidanahay maanta dagaal saaq dhexdiisa ay ku jiraan waa wax laga xumaado yaani waxaan ka xanaaqay Cabdiraxmaan Tuur buu midcaay Cabdiraxmaan Tuur kii ku xoreeyay dalka ku guuleystay anaga run ku sheegnay lixlu caay ina kood burbucay war qoodha ay xirana ninka maanta isaaqay lixleeyina kood burbucay meel inuu gubadalahay ma wax loo dul qaataa yaani waxay arkayaan war wax horaan aan ugu war ragga sanamtaada iska daaya ee wadanka soo shiiday hadaa doonta kuwa nool caaya war adeer uma dul qaadanayna mana aamusino lixle garxajis waa garxajis هالدفاع نوران معي هو المجاهد أصلاً هو الدفاعية ومحمد علي بان دفاعية وإبراهيم قطبور بان دفاعية لكن كوي مكنور يقل حجيس دفاعي ما يدي حتى كوي دي كسو تشيدو وقلط لكن ركي على ريكو ضبحاش أصو حري وان دفاعية ما هو كطر لمنيا كطورها هذا ساقة إنما يرى رأي مكويدو تشيسو فرحرام ما يمكن لقد لقيت تدك ayaa caayaan mujaahidiintii dhiigooda soo hoftay kama dul qaadan kareyno futadoodu xoreeyay wallaahi billahi tallaah oo wax la yaabo maalinta hada raawulaha baan ogeyn
ma lixdaa godka u galay gibil aan shiiniyo geesigii maxamed cali magabood madooba bal inta gabay soo dhigay haddaanan lixdaa guga maanta la soo harin guusha war faqash oo ayaa siyaad bare amar bixiyey lixda buu yidhi SNM kama bixina Soomaali oo dhan buu ka baxay 3 cisho calanka hoosa loo dhigo haliimada wuxuu ka qabo cadawgii baa u garaabay markaasaad adigoo isaaqu ftadaada xoreeyay habeen walba halkan soo fadhiisan saad caaysa ina gumeed ku dhalay war Axmed Dhagax baan difaacaya Sacad Musa wallahi hadii la soo qaado waan difaacaya weli maan aragnin sheekh saxaaqo saraakiishii SNM ee halkanka ku geeriyootay caayo reerka ahayna wallahi weligeyna aan arag ma Axmed Dhagax iyo gacma dheero oo nin garxajisi ama nin Arabi caaya weligeen aragteen ma jirto adna ina kood buuriyo lixliye Maxamed Cali baad maalin ay kala dhamaan laday oo laf dhabartii SNM aha inaadir ilaahay baan ku warka ka aadan Saleebaan caaya ka hayliqin caaya ka hayba gooraan caaya ka weerar caaya ka lixla caaya alfto caaya harag waafi caaya Axmed Dhagax caaya gacma dheer caaya wallahi dhinac baan uga soo jeeday reerku doonahaade waan karbaashay reerka adna maanta iska leedahay faqash buu hebel kala faqasha ina koodbur baa faqasha ma ina koodbur adeer haashkaaga kii lagu baqtiinay har cad la baxay oo intuu isaaq ciidanka ka soo xushay 12 nin oo isaaq oo qatar u soo xurtay oo shan habar jeclatay oo qiri laaday waliba maanta ninkii darawalka ahaa ee Siciid Birjeex maadilowda Arabe Hargeysa inta ku dhaawacmay ilaa qaaxo aan oran xabad baa igu taala eeyda hataa idhaahda xabad baa igu taala oo gaariga wada waxaan si rag way baqan maadilowda adeer maadilowda shaqi habar jeclay haliyadaha ina koodbur raggaas soo xushay markuu la baxayay ina askar markaasaad maanta ina koodbur halkaas soo fadhiisanaysa meedana sabahayn weydaan gobahayn anagu adeer qabiil kan aad sheegayso wariya banjeed habar jeclaatay adigu soo cadow aniga waxba ha igu meeraysan xisbi baad lahayd xisbigaaga markaad la soo hadhay taliyo markaasina wada hadli had cad baa xisbigaaga laga diray had cad waxaan ku wada hadlaynaa baynaadar xisbigaaga horta la soo had 45 cishadu qabatay Muuse bixi maaye cirka ka soo leef baa lagu yiri markaas waliba waxa allaala wixii daar siiraan bixiyay ee habar jeclaan hadarkiisa ka xayira xiniyeelo horta adu inagu wada hadli maynee Cabdilaahi askar buu hada kii haashka lagu baqtiinay haashka sidaas uu gaan ugu baqtiinay talaa reer sheekh saxaaq ay buu haashku baqtiyo baaskoolad intuu qaado ilka haba kaga qubay suu sheekh saxaaq waxa ku taro 7 nin oo habra wada korneyl asaa u dhinac taxnaa ina koodbuurkii ka damqaday ay maanta caaya ma kuwaasa gob ilaahay baan ku dhaariyay biixi baa ku dhintay oo taalada maanta miiska saraakiisha hortiisa taalada ka taagan ninkii biixi ee Muuse Cabdallah loo dhisay ee miiska saraakiisha ku dhintay kuwaas ay caayaan maanta war miyaan birmageedaba lahayn birmageedaba miyaan lahayn waxaan ka odhantay SNM iyo lixle isku miisaan bay haayeen badanaa naflaha birta laga asliyo tuutaha baqtiyay badanaa lixlaha kugu soo baxsaday waxa ka tiriyay tuug tarabi nin habar jeclaa maalintii lixle intee buu tiriyay wariisa badanaa naflaha birta laga asliyo tuutaha baqtiyay badanaa lixlaha kugu soo baxsaday siiraayna maalintii muxuu yiri SNM waa wada lixle yani fakash waxay u haysatay lixle haday dishay inay SNM u dhamaatay
kiibaad maanta caaysa abaalaawe keena asaad muuse biixi oo xidhiidhka qaxoontiyada loo dhiibo qamadiga islaamaha ka soo ururinayay aada mujaahid u haysataa ma maalin ragii qamadii ururiye ahayd maalintii raggu dhamacda ku jiray aydhineen ilaa 90gii muuse biixi qaxoontiyadu ku qornaayo qamadii ku soo ururinayay war ma maalin ragii oo korneyl oo military qamadii ururiye ahayd bal halka loo magacaabay baa halka muuse loo magacaabay ayaa wuxuu yahayba kugu filan ma nin ragaa maalintaa dhiiglaad ayaa qaxoonti joogayay ninkii dhiigga lahaa adeer dhamacdu maalintaa ku jiray uu nafta u furayay kiibaad u haysataa awliyo raashinka islaamaha ka soo ururinayay ee halganka ka baxsaday faranta tii kari waayey ee taliska yare belgubadla kolba ururka iskaga qaadayay cajalada iskaga duubayay raggu markay halganka ku jireen raggii adeer halganka ku jiray cajalada iskama duubin maad aragtay cajalad lixda ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad maxamed cali ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad inahayba goodhar ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad weerar ka qudbadaynayo maad aragtay isweydii maad aragtay cajaladu uu ka qudbadaynayana macalin haaruun maad aragtay cajaladiina koodbur ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad hayliqin ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad aadan saleemaan ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad uu haragwaafi ka qudbadaynayo maad aragtay cajalad xaamud ka qudbadaynayo cajalad uu guutaala ka qudbadaynayo adeer dadkaasi raggii halganka dhabta ugu jiray baa ahayd idinkuna cajalada midhan ba xagga dambe iskaga duubi jirteen oo odhan jirteen marka dalka la galo taariikh aynu yeelano raggii adeer halganka usoo dhintay cajaladba lagama hayo mama duubaan mamay duubin halgan baaba ku jireen maxay duubi ninka fulayga unbaa xagga dambe iskaga duubi jiray dee cajaladaha boqolaal cajaladood baa soo bandhigtaan goormaa iska duubteen faranba maydaan joogin dee taliska balligubadlaa iskaga duubi jirteen habar jecla iyo arab iyo garxajis saraakiishoodii bal sarkaal cajalad iska duubay kii 91 nin soo gaadho dee xusuus reeb qoray laga duubay mooye bal in isagoo islaama cajalad cabdilaahi darawal baa mid laga helay hal cajaladaasna waxaa ka duubay weliba nin ciida galahoo la yidhaahdo oo reer guuloodo waxaa la yidhaahdaa hebel greeg aadan ingiriis baa la yidhaha aadan ingiriis oo xilligaa dalka yimid oo faranta tegey ayaa laba cajalood duubay midna ciidanka ciidagalaho airboortka geliyu ka duubay midna cabdilaahi darawal iyo ciidankii ufuu ka duubay maalintii la midaynayay bal muuse biixigan aan weligii taliyo ururee sanam ka noqonaya kontonka cajalood ka duubay ee balligubadle iskaga duubayay kolba ururkii yara talisku soo shirin jiray markaasuu iska dhigaa inuu farantii ka qudbadaynayo wallaahi waan weligiiba faran mu iman weligiina taliyo ururee sanam kamu noqon xaguu cajaladaha iskaga duubay bal boqolaalkan habaraa weli cajaladaha iska wada duubay adeer halkay joogeen adeer ninkii dalkan iyo dadka u halgamayey kumuu hamiyahayn beri toole cajaladahaaga hala daawado wuxuu ku hamiyey dhimuu ku halgamayay ninka ragga maalinta ah ee cajalad iska duubo beri ku faan marka dalku xoroobo muu lahayn ninka ragga geesigii kumuu faanahayn taas run markaynu ka hadlayna anaa run idiin sheegaye ninka geesigii maalintaa kumuu faanahayn cajalad intaad iska duubta markuu dalku xoroobo isaaq ugu faan ismuu lahayn ninka ragga wuxuu hamigiisa ku jiray ninka ragga dalka usoo dhimo ayaa ku jirtay damiirkiisu muu siinin cajalad laga duubo oo hadhow la daawado muu siinin damiirkiisu in sawir laga qaado dee sawir photoshop wuu jiraa qaar photoshop lagu sameeyey iyo qaar kaloo caadi loo qaadayba way jiraan laakiin ninkii rag ahaa adeer cajalad iskamuu duubahay magu haleelahay waxaan garanayaa maalin isagoo xasangeli noo qudbadaynaya ayaa nin cajalad wato malaa sacuudigu ka yimid ayaa loo yimid wallaahi oo bilaahi xasangeli weeri baxbu ku yiri basaas iyo basaas ku dhalay cajalad hanaga duubinay basaas baanu anagu naqaanay ninka cajalada duuba xilligaa ragna intay xagga dambe istaagaan bay cajalad iska duubaye waa kuwa imika lagu wada faanaya youtubada ka buuxa war adeer cajalada raggii rag ahaa iska duubi waayeen dee fulay
هذا العشرة مالتها مهليل هيني إنه نفتي سأخرو طلق اسمه بقول هين واد نولانا ساعتي نشجع ما نشجع مالتك نكو طلق عليه أو رجله أو فعله أو حنيله كم تلقلين إنه نولانا يو مركع عشرة ويسكت ضوبية وحنا كم قال هاي لكن كيف فلقها وحكو طلق عليه إنه نولانا يو مركع وحس لها كاجس يفرنت كتيرة طلق كو حرينية عشرة هذا ولا تقول فارطة وتاريخ كو قشة iskaga sii duubtaliska dambe de sidaa muuse bilgudle iskaga wada duubi jireen waa kuwa imika soo dhigdhigaan dee yaryarku ay facebookyada soo dhigaan fulayda adeer fulay unba cajalad laga helaayo halkaa soo dhigta nin ragga adeer maalintaas soo heshaan ragga aan idiin sheegayo saraakiishii habar jeclo kuwii garxajis kuwii arab cajalada ay iska duubeen markay qaaxa joogeen ee dagaalka ku jireen hataa aragtaan taasaa saxa laakiin arki maysaan iyagu halgan bay ku jireen ragna taariikh uruursi buu ahaa oo waxbuu boobayay oo hadhow buu islahaa taariikh samayso ragna taariikh samaysi bay ku jireen ragna dal iyo dadka inay xoreeyaan bay ku jireen raggaasi waxay ku jireen dalka inay xoreeyaan inay cajalad iska reebaan kumabay nololba kumay talagelintay ninka aan nolol ku talagelin muxuu cajalad iskaga duubiba basaas bay u yaqaaneen waxa oran jireen sirteena yaan loo geeyni faqash wallaahi saas oran jireen cajalad aan naga duubin sirteena faqash loo geeyni oo ciidamadeena laga duubin oran jireen laakiin ninkii fulaygaha oo ka taliska boqolka cajalad iska duubayay muuso gaadheero cad oo tinta halka bilgulaag marmariyay taliska kolba soo shirnay urkeera taliska oo iska dhigay inuu joogo kala bayd iyo gabiil dusheeda يا سبحان يا سبحان ورما موسى حرة جوجو وحركتين عيدا تليا ورفكا وروح أكو شاكين سانك مركو حرة جوجو عشرة يسكت دوبي مثلا كيش كلا لقى طوبه إلى هاي هو باكل أرته وركي تلسكي بالجودلي أيو أنتو بناك وصل صار عشرة كاس كيو هردو بيشري أنتو كل وين قبلايا صاحده فلوي كان حارويناه warninkii soo halgamay ee ku socday ee hadafkiisu ahaa u dhimo dalka cajalad adeer iskama duubin xaasha waabu dhimanaya muxuu cajalad ku falay mid kale wuxuu aaminsanaa haddii ciidanka isna cajalad laga duubo in faqash loo geynayo haddaba qoladan habar oo ma faqashta cajalad u duubi jireen waaba yaabe waxaanu cajalad halkii ku haysteen anagoo maana arage dee faqashta u diri jireen wax kale u diri jireen wer imikana waxa ay idin fureen TV la yiraahdo shanta Soomaaliyeed ayaa Hargeysa laga furay soo ma ogidin warka TV la yiraahdo 5 TV Soomaaliyeed wallahi Hargeysa ka furay inta cid kale wax ku sheegayaan isla ku shaambadaya Hargeysa ka furay TV-gi 5 TV Soomaaliya Hargeysa laga furay كوضع تعوضته وكملوا البو ولا جسودايا وتلحيسيو وحسودايا عاو كروان داونيو وحقبت كمصبيحين مشرحي دولة أنا مال جلسي مصبيح أنا مال جلي ربنا نودي شيء وحنا له 5 تي في وشنطة الصوماليات 5 تي في صوماليا وشنطة الصوماليات مركز عيد كلفة كل شيء baasaboorradii Soomaaliya inuu reer Samaatira Hargeysa ku bixiya ma cid kale faqash ku sheegaya warbar aqal xumaantay wadaan ayagidinku amgareeshinkii Soomaaliya nin ka tirsan oo reer Samaatira Hargeysa ku bixiya baasaboorrada saldhigga dhexe 100 talaabo jira Soomaaliya wada doonayaan dad kalena way ku shaambadeeyaan dadkii dalka u soo halgamay ku shaambadeeyaan inay Soomaaliya doonayaan iyagana Soomaaliya doonaya oo TV-gi 5 TV Soomaaliya كفري هرجيسة أو باسابور شدي هرجيسة كبحية محي معد كلا بوران ورني شاك ما قلتها مسور بينا هذا ريالي والله أنا ويال هيني ما قلتها نشاك يسور مو يالي هاي marka waxaan idin leeyahay hadaa wanaag doonaysaan
warbal ima reeyaga hadaa habara walay wanaag doonaysaan maanta dalka idinka xukuma war dadka isku soo jiido wanaag ka dhex doona laakiin ina maanta arab dhinaca u cay garxash dhinaca u cay oo yaa ku soo hadaya mooromaya jaarsa dalka keenaysa hooyada baan ka yeeleen hadaba annaga kurbaashina wallahi aan oromiya jaarsa soconahay inaan oromiya jaarsa soconahay markaad habar jeclad halkan ku qaadqaado ee arab ku qaadqaadeed garxash ku qaadqaado halkeed ku socotaa dalka ayaad ugu yeedhisaa ma jaarsi oromo war ka yeeli mayno waxa adeer aflagaadada hadaa joojinaysaanay dan idinka dalka haystee dadka wanaag iskugu wada annaga maxaa naga daadanaya had iyo habeen baan idin misana hadii kale hadaa idinku wanaag doonaysaan dalka idinka haysto maanta madaxweyne ka ah ummadda isku soo jiido reer Soomaaliland isku soo jiida waa hadaa wanaag doonaysaan hadaa laakiin idinku Facebook-da dadka u soo horfadhiisanaysaan oo faan iyo been duuduubaysaan cid walbana caaysan reer walbana caaysan idinkama fareerin kama afirin had iyo habeen baan idin misana anaga waxbana naga daadan maayaan muusana waa lagu wada kiciyo oo daleedii roga aakhirka hadaa wanaag doonaysaan ummadda inay wanaag ku maamushaan dad ilaahay garanaya atiin wanaagga idinku ummadda ka horeeya oo inta bareeb bulshada soo fadhiistaan dadka isku soo jiida oo wanaagga ka shaqeeya ma adigii ummadda madaxweynaha u ahaa ayaa waliba xumaan deedeeya oo dadkii caaya muusana madaxweyne nooma aha waa handaraab waa quful waa fircoon waa ma dhageyste imikaan ku leeyahay waa kaliyahaan leh waa qabiilayste waa naxli hursan waa balaayo iyo baas waa abaar waa baahsan waa bus waa abaartii hawaara waa hargacuna qaranimo hugeedana hor allu ka jooga hayna uu ka maraya hadal baa haysane bal waxa rabtaan in muuse madaxweyne la yiraahdo haddana ummadii baa caaysa bal idinku labadaas bal habara walay labadaas soo qabadsiya beelihiina waa nucaayena muuse madaxweyne ha la yiraahdo bal soo qabadsiya idinku beelaha labada waarka idinka yeeli meena muuse waa baahsan waa abaar waa inkaar waa habaar waa naxli waa macangig waa ma dhageyste waa handaraab waa fircoon waxa weeyaan balaaye baa soo dhan waxa soo dhan waa musabixi ma waxaanu shacabka idinku tulnaa ina saraakiishii ee sanam ee halganka dalkaas maanta in la xoreeyo sababta u ahayd aku caabi idinku tulnaa habara walay oo idinka yeelay idinku la dalka madaxweynaha ka naybaan ayaa halkan ka leedii halkan waxa leedii maxamed cali iyo lixle iyo iyana kood burbo waa faqash bay haay iyana hayba gooraad bal waxa ku sheekeensan aqal xumaantiina ma taasaan idinka yeelina war waxa la idinka qaadan karaya maaha in si saaniya la idinla dagaalamaa waliba waajiba oo madaxa badla idin kala wada dhaco qurun iyo umada ka fadhiisto oo isla yaabo khajira war khajira oo isla yaaba oo xishooda war adigii lagu xoreeyay ee dhadigaha ee waliba lagu yiri madaxweyne noo noqo ayaa waliba had iyo habeen umada halka u soo fadhiya war meedan xishoonayn isla yaabahay ninka adeer umadu madaxweynihi dadkiisu umaday waaniyaan wanaagay ka shaqeeyaan isku soo dhawaanshaha ka shaqeeyaan isku soo jiidka ka shaqeeyaan maan arag wali umad ka shaqeynaysa kala dirid iyo kala fogeyn oo yaa ka futuxun adiga dalka wax ku ah adiga cashuurta dalka ku nool reer kale ku nool ma jira cashuurta dalka lagu ma quudiyo reerna adaa lagu quudiyo ay ninkii ka dumaysa waa adiga oo adkayso wanaag lagu taakeli waayo oo adkayso yaana calatullah guri kasta oo sacad muuse maanta ama hargeysa ku yaala 5 qof baa ka shaqo taga run baynu isku sheegaynaa mashaariicdii dalka oo dhan adiga lagu galiya qandaraas oo dhan adaa qaata war markaasaad haddana maanta xishoon lahayd umadii ka xishoon lahayd war balkii aan waxba hayn bad caaysa waliba adigoo intaas oo dhan qaata war miyadan aqli ma lahayn ma loo baati sideetii nimanka
warso kii adeer habar jeclo adiga waxba ku odhan mayno xisbigaaga la soo hadh annaga waxba ku odhan mayno 10 aqale muuse ka ninkaad xisbiga u dhiibatay 10 aqale hargeysaba oo kii kaa xayiray reer kale uun ha eegine xisbigii 45 cishaad seexdeen habar jeclo naf iyo maalba ku bixisay markaad la soo hasho markaad xiniyeelo markaad dadka la kaftan had cad baa lagu khiyaamay lagu dira had cad ayaa lagu khiyaamay masaad hadlaysaa news games imika aan ku baloogay adiga banjeed marka waxaan leeyahay war maanta haddii dinta aniga iga dumi mayso oo wallaahi nin kale oo reer sheekh saxaq inaan ku dumahayn adiga ka dumaysa maanta dalka qaranka dhan waxa ka shaqeeya ee qarannimo ama dawlad lagu sheega adiga kugu baxaan adaa lagu quudiyaa hadday qandaraas tahay hadday mashaariic tahay waxaan hadday shaqaale tahay war maadigii intaan lagugu quudinayay ayaa kibriya oo ummadii isku soo jeedinaya arkay maqlayle oo reer walba halkan ka caaya ya subxaan ilaahow caqliga hanoo waaye war qumada caqliga way isqabataay waxa jira war wadanka bay naga xukunay dadka ay niwaano dadka isku soo jiidnay ilaahdaan waligay maan arag ma jiraahdo dadka aan si kala didin ama dadka aan isku soo jeedin haddaba lama kala tagayo adeerina dalka kaaga tagi maayo nin adiga kaaga Itaaliyarina ma jiro nin kaaga reer jilicsanina ma jiro lagu bari maayo taa ku talagal ninkaad ka reer adag tahay ama ninkaad ka xiniyo badnaato dalka ka saar laakiin anigu waxaan kuu sheegayaa in ha jabin adigu aad ku dambeyn doonto godobtaad qaadatayna aan mid meel ku wadaysahayn rag baa adeer rag difaaca haysta ama xiniyaa isku difaacaan isku og oo laabta garaaca adeer hablaha hala caytaminkaagaa dubriki كل هبلا ما كلا بدينا سان إنكم هبلون باكو مشغولين كم يرستان ورنين باكو فانا نين با دتك كودونتا أما فعل كسمايا أما دتك كوكيبره حينية أولي هو يراها هذا حينية حاجات كدفاع ما وجد حينية كدفاعية صومالينا كوجموجا أدقون يسكموكي هذا ويا كل قراران فانكا إيه عيدا إيه وح إيه كبر كأس شويسة وهذا ويا كل قراران هو يكتشوك ورطب كنوا يقصد عياه هو يكتشوك هو ورهدان العيد كدفاع ذا هيني adeer ka joog ummadda ha iska dhex saaran anigu waan kuu digaya ummadda balaayo ha doonin kibir ha doonin iyo arkaa iyo maqlaay ha odhan ummadda ha ku meeraysan wallaahi oo bilaahi waan dhaartay reerka reer sheekh saxaab ugu yar ayuu biyo too jeclay inaad maalin iska difaaci karahayn adna cid kale aad sheegaysa maalin inaan iska difaaci karin baa wallaahi maalin inaan iska difaaci karayn oonad gelin iska difaaci karayn war adeer markaasha shantaa shaqaalaha iyo qandaraasyada iyo nimcada aad ku jirto ha isku qoonsanin anu intaasaan kaaga digaya ha isku qoonsanin dadka wanaag ku wad adeerkaaba madaxweyne ka awood kale madaxweynuhu waa habarawal haba ahaado waanu idiin deynay inuu habarawal yahay laakiin dadka kibirka ka daaya oo dadka isku wada oo dadka isku soo jiida war ma intaasaa garan ladii xumaantan aad deedeysaan baraha bulshada u soo horgalaysaan la soo taagantiin waa maxay waliba waxa wadaan annagoo madaxweynena aanu haano dadkana aanu cayno cidina iyo joogno odhan dee saaxiib isku heli maysaan labada waanu idiin miisaynaaye hadiidina markaa kulbaynayo rasirkhaana leef soo gelisaan ee beelaha caydan waanu idiin miisanaa idinkuna idinkaa madaxweyne dalka ka ahe
dee idinku tanaasul oo wanaaga ka shaqeeya haddaa idinka tanaasul weydaan ma annagaa tanaasuleyna gababa ma haynee waanu idiin misayna hadhiyo habeene adkaysta dee markaa maxaa runta la iskugu sheegi waa idinku waa inaa ummadda usoo horgashaan waa inaa wanaaga ka shaqaysaan waa inaa isku soo jiidka ka shaqaysaan waa inaa xumaanta ka fogaataan laakiin haddaa idinkii soo samaysateen 300 oo gruub oo ka caydaan isaaq weliba reer Soomaaliya ba ka caydaan isaaq oo kaliya ka caydaan isaaq miyuu ka xiniye yar yaa u haysataan idinkama xiniye yaraa wax aniga iga qubanayaan ma jira casarka hadii doontaa waanu miisayaa unte haddaad adigiiba wanaagii garan leedahay nin aqal quraarada ku jiro dee aqal dhagaxaa turtuurin ilaahay ummadda kaa qabayo aawdanoo fur iyo xanja ku gasha iminka haddaan beelaha kala caaya sacabkay tumi ladan sacad musa amaano imay tidhaahdeen waa walaaladii ka daa fur iyo xanja ku gasha adiga umayee khalaafaa leh markay dadka kala caayaan wallaahi oo bilaahi waad yaabaysaa dumarkoodis waxay ku shubayaan sidan dheh haddii kelmad la yidhaahdana habaar bay halkaa kula soo fadhiisanayaan yaa wallaahi oo bilaahi waa yaabay aawdanoo furiya xaja ku gasha adiga hoostaada la hel islaamaha odhan jiray hoostaada la hel qumayee khilaafaa leh adeer baawarka isaaqba cid iskaba ahawo dee anagu dhadig baanu kuu naqaano Soomaali oo dhan baa dhadig ku taqaano magaci kaa baabi'i maaye laakiin bal baawarkan aad sheegaysa iska ahawo dadka aflagaadada iyo xumaanta ka taagay dadka isku soo jiidaw maxaa la idinka baryayaa haddaa dadka isku soo jiidi weydaan dee inaad irmaano caana iga daadanayaan misaanaa madaxweynaha xagga kale ha rugmataan anuguna xumaanta baan wadaya beel waliba xumaan bay wadi idinkaana markaa xumaanta abuuray ogaada markaa reer walba idinku caydaan idinku madaxweynaha idinkaa xumaanta abuuraya reer sheekh saxaaq inta leefka soo gasha wallaahi inaan cidi canaananahayn kuwa la canaananayaa waa idinka ee dalka ka madaxweynaha ee nimcada dalka jaqaya ee haddana ummadda caayaya idinka idin fadhidaa baashu habrawale halla idin arka habrawalo waxaan ku taslimta haysata oo wanaag ka shaqaynaysa deenar halla idin arko marka taa la idin arko dee reer sheekh saxaaqa kalena leefka waanu iska deynba laakiin maxaanu deynaa ma idinkoo dadkii nacaayaan deynayna wallaahi inaanaan deynin sanadkii cusbaa baan lahayn waanu ka tanaasulay nooga duceeya caawaanu arkayna kii sacad muuse whatsappka lasoo qabtaaba arabiya garxashis buu caayay marka ma anagaa dibnahay baruuri noogu jiraan miyaa idinkoo nacaayaan weliba sacabka idin tunaamiyaan dhaha muuse waa madaxweyne aabba muuse aan idhahda nacdale ha korto sida kastoonu u ridi karna si kastoonu dumi karnana waanu wadaynaa marka anaguna haddaa wanaagga diidaan wallaahi inaanaan idin baryani bilaahi tallaahi xumaanta haddaa ka shaqaysan anaguna waanu ka shaqaynaynaa ninkii dalka kii ku ladnaaba ha ku leeleelo ninka taariikh xun haddaa ka sheekaysaana mid habaaran baanu ka sheekaynaa wada qoomaluuda aanu run baanu idiin sheegayna cid idinka taariikh xumina ma jirto waxaa dad caysaan idinkoon baa taariikh xumadiina dibadda usoo saaraya habeen dambena waxaan soo dhigayaa 13 kiis xukunadoodii baan soo dhigayaa facebookyada saa ugu soo qubaya arrin reer sheekh saxaaqo xukunkaas ku dhaco kalena soo hela markaa haye idinkaa dee xumaanta yidhi bal xumaan baanu foqaynaa kuwa ummaddu idinka haysa ummadda dhex yaalla kuwiina unbaa dibadda u soo saarayseene ku abshira haddaba adeer haddaa wanaag doonaysaan oo ilaahay dad taqaana aad tihiin yaanaan idinku arkin leef dambe idinku hor heera ka caaya wallaahi inaanaan bun dambe laydin amaahinahayn reer idinka ceeb xunna ma jiro cay socon mayse laakiin wax wada caddaanaa lasoo dhigi doonaa oo runa oo xaqiiqa oo aqoontaad leeda waa tee maal haddaad aqoon leeda ma kuu barbaad keeni lahayd aqoontan aad dadka ugu faantaa war waa kee
bal ii sheeg aqoontan halkan aad ku leedahay eed sheegataa waa tee ma muuse jaahil baa aqoontaadu qabyaalad baad ku heshaa aqoon kuma heshid bahasha iyanaan been ka sheegi cid kaa aqoon yarina ma jirto cid kaa aqoon badan mooye jaahil midhan baad meesha keentaa iyo muuse jaahil oo midhan aqoontaad sheeganaysaa markaa adeer waa tee war adeer wax noo hadhay ma jiro waanu wadaynaa baaba ku leeyahay dee waayo waxaa noo hadhay xukunadiini oon halkaas soo dhignaa noo wada hadhay inta gayga lagu xukumay iyo inta lisbeenka lagu xukumay iyo inta balaayo baaska lagu xukumay waan soo wada dhigaya maxaa beenta loo sheegaya soo dhigay idinkuna waxa arab ka haystaan ba anaguna aanu soo dhigaynaa hay taa hoodaa bakor la yidhaahda wallaahi oo bilaahi waa inan bay sheeganaysaa waan yaabay caawa markii dadka la caayay inantaas waxaa shubaysa inana way sheeganaysaa waxba adeer muu keeni arabsiyaad ku casuunta kuu bar maxaad u odhanaysaa arabsiye gabiila waa ta youtubada ku jirta meel habar jecle joogtana muu tegin meel arab joogana muu tegin meel garxad joogana muu tegin waxa habla la sawirana waa reerkiina markaasaa dadka inan baa to caawo dhan markii dadka la caayay waadigi sacabka u timaye maxaad u odhan weyda dadka ka xishooda eed weliba ninkii waalinay aad lahayd ku jar wallaahi inantaas inaan wax kalahayn ku jar haddaba wada kuu barbaatin iyo wada khaniis miidhan iyo wada ftadiinu forsel ku wada taalo oo adkaysta haddaba waa taad lahayd ku jare eed cayda tulka jeclaysanaysee taadana si fiican ii dhegeysa haddaba xukunadii raggiina la wada xukumo wada gayaan soo dhigaya habeen dambe oo inay hebel midhana ninka reer sheekh saxaaqi ftadiisa la xukumay carha la soo helo ee idinka ahayn waan yaabay wallaahi oo bilaahi watallahi intaas waxa shubisay ilaahayaa buu keenay inaan habar jeclaabaa la soo hadlo xukuur tolka ahaa cayna ka daaya waxay tiraahdaa ku jar siilka hooyadu wasa ku jar yacni caydaa reer sheekh saxaaqni ka habar wal caayayba ku raaxaysanaysa ma hablaha markay war hablihii dadka qaban lahaa markay saa ku hadlayaan ma hablaha maaha hablo waa wada qumayooyin qalaafo leh inantu waa inay ka fikirtaa oy tulka ku tiraahdaa hays caayina oy dinanimada iyo dadnimada ka shaqaysaa oo adeer kuwiina garhku caddaaday maxaa u keeni weyde annaga siyaasaddaaba naga soo saartee siciid cilmi rooblo xildhibaanaa leefka soo gelaye maxaa u keeni weyde muusa boqol youtube samaystee maxaa kuwiina u qaban weydeno booba yuusuf ducaalaha saa u soo taagane meydaan saragba balaaki baa soo taagan hebel kalaa soo taagan waxaa soo taagan guri barwaaqo waxaa soo taagan maxamed muuse diiriye wada leefkaa ku jirtaan odayaashiina ilkuhu wada daateene maxaa ula hadli weydan kuwaa sacabka waydinka u tumee haye matayadaa idinla qadhaadhaatay arab oo dhan anaa leefka ka soo galo aniguna idinkaan gaadh idinka ahay keligeyba arab oo dhan iisoo kiin diray qof arab idinimo maayo rag iyo dumar toona keligeyba habar oo dhan loo soo diray inaan kaga filaado dibna hadal ka soo baxa anoo doonyaqaadu ah jiida haysan ama siciid cilmi rooba saddexda habeenimo ha soo galo ama waxaan kuri booba ha soo galo ama balaaki ha soo galo oo ma odaybaa idin hadhay ma odaybaa idin hadhay macalimiinta maamulayaasheedii iskuulkaa soo galo ilaahay igoogi idinku ciyaar baa u haysataane markaase iminka ku leeyihiin maxaa ciraad madax garhka ku leedahay waar annagoo kula baanu idin karbaashaynaa weliba ma kuwiinaanu ka liidanaa kuwiina futada iyo afka u caddaadayna macalin khabeeraad flaad hayamada arag waar ba hasha xejista hasha geela cunta cabaada kelmad in la yidhaahda ma jeclidin ma dadkiina ku fikiraya caqli xumaantiina madaxweynena aanu ahaano dadka markaanu caynana sacabka ha naloo tumo muusena aabba muuse ha la yidhaahdo nin caqlile oo rag iyo rabbi toona yaqaanaa noocaa kuma dhaqmama bal sidaa ku dhaqmaysaan bal idinku isqabadsiiya dadkaanu cayna muusena madaxweyne ha la yidhaahdo ma ummad caqlila waxaa ku hadashaba kumaba hadasho dee
caqligii waxaa wadataan soomaali abo caqligii soomaali abo ayaa wadataan ilaahay ha idin sahlo haddaba muusena loo turi maayo cid kalena loo turi maayo ninkii ku ladnaabaha ku leelo anima madaxweyne aan ahay maxaa iga galay xagga kale aan rugaya macal soomaaliyaan soo raacaya aabaheed baan ku wasaya maxaa aniga iga galay adigii baa joojin waaye haye wallaahi adigii baa joojin waaye adigii aadar waddanka wax ku haystaa joojin waaye maasaad aniga leeda jooji wallaahi inaana joojinayn ootaan u rogaya imika laga bilaabo macal soomaaliyaan wallaahi taageeraya ootaan u rogayaa qoobadan yaree halkan dadka lagu haysto bal waxaa ku sheekeynaysaane markaad qarankii dadka ka sheegato markaad dadka caydo markaad madaxweynihii dad ka sheegato markaad beel walba caydo halkeed ku socotaa markaa war aad iyo aad baan idiin salaamaya anigu anigii iska xidhay sanadkii cusbaad dadka aflagaadadooda laakiin iyagaa ay furay waxaabay ku soo heshiiyeen kii jeegaandiid la odhan jiray ee carabeed ina hor taagnaana dee uu iska daayo uu ka tanaasulo waa tii looga duceeyey sanadka cusube hee caawa umaysa arab nairobi inaad joogsadoon jitay leemoodee ninka gabayga arab jiidaya haw jirincoo lehna jariirada la dhici jidib ka waaweyn adeer arab istaba yaaca ma jira keligee baada ku filan keligee baada ku filan oo aqoontaa sheegataan waa tii aadnabad imaan siisteen gebigiinabe rag iyo dumarba haddaan isku kiin wada daree ilaahay baan ku dhaartay rag iyo dumar haddaan isku kiin daro halkaa aynu caalamka u tartanno adnaa laydinka qaadanaya inaan nin laydinka qaadanayo gabarhtoona maxaa kale sheegaysaanba bal wax kaleba ayaan idiin soo qabanin ragga arabba anigoo soo qaban bal aadna oo keliya bal rag iyo dumar isku taga habar awalayo aadna ma gaadhaysaan oo keliyaata aqoon unbaad tidhaahdaane bal aqoon-yahankaaga kuu jooga dalkay kuu joogaa waa keed sheegta ma muuse bixiyo booba bal siyaasigaaga adleedoo dhan intaad isku wada keento xasan ciise kale la miisaan waxaad siyaasi leedahay bal waxaad siyaasi leedoo dhan xasan ciise ku miisaan xasan ciise ka miisaan badan bal cabdilqaadir jirta ku miisaan siyaasiyiintaadoo dhan walahi cabdiqaadir jirta ka miisaan badan bal aadnoo inana ku miisaan rag iyo dumar habraa wal intaad miisaan wada saarto aadnana miisaan saar walahi iyadaa kaa miisaan badan oo kaa aqoon badan marka adeer aqoonaha ha sheeganin aqoonna ha sheeganin bahasha ka qajin aad baan idiin salaamayaa hablihii sacad muuse ee sharafta lahaa ee qiimaa lahaana waan salaamayaa ee codka macaan noogu luuqeeyey arab maan ka dhasho arab maan u dhaxooy hablahaa waan hambalyeynayaa meel kasta oo ay joogaan hablaha sacad muuse gob hadal gobeed baan u haynaa anagu waan idin salaamayaa hablaha igu qaaligaa sacad habrawal ee codka macaan laxamka ku saaray arab maan ka dhasho arab maan u dhaxo hablahaas sharaf bay naga mudan yihin oo hadal xun kuma odhanayno ammaana waanu haynaa gobgob dhashay aada iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa meel kastoo kala joogtaaba damee aqoonunba inaan kuu sheeganayaa maogti sheekhoodoo dhan haddaan isku daro waxaa kitaab sita ee habar awala sheekh dirir baa ka miisaan weyn wax allaale waxay aqoon leeyihiina rag ba iska daayo adna haddaan ku miisaamo inana adna ka aqoon badan de markaa maxay aqoonta sheegayaan bawati xasan ciise iyo cabdilqaadir jirta iyo maxamed warsameyna waa reseefka raggaa ragga ee wada b h d gaah markaa adeertee bahasha aynu qoqoodina aqoon-yahankaagu adeer waa muuse biixi iyo booba iyo maxamed muuse dir tata iyo guri barwaaqa iyo kuwa adeer adiga aqoon-yahankaagu dee aniga aqoon-yahankaygu adeer kuwaa maaha xaasha
arabdaan dhagax arab iyo albaabada adag waxaasoo dhan geesinimaa naloo yidho wallaahi haddaan arabi dhalin daamamku ima adkaadeen ninkii yidhi maad maqnaadeer ciidogalabe 6 askari iskugu tegeen daankiisa budka ku kala jabay haddaan arabi dhalin daamamku ima adkaadeen 6dii adoon budkii iyo laadkii uma adkaysteen macyaar baad u haystaa arabtaan dhagax macayood moodaysaa haddaan dhadigna la odhan waan sahlan sidiina arab iyo albaabada adag cabdicasiis cali barro nin mareexaan oo imkiiniya jooga oo ninkii morgan bedelay ayaa adeer noo bixiyay albaabada adag oo taarku ku odhan jiray albaabada adag baan ku baxaynaa adigana wuxuu ku odhan jiray dhadigii baan ku baxaynaa maalinta kuusoo dagaal tegayo anna wuxuu odhan jiray maanta waa albaabada adag ciidanka hala adkeeyo albaabada adag baa maanta loo dagaal tegaya adna wuxuu ku odhan jiray dhadigaa loo dagaal tegaya marka annagu adeer waan ku faanaa arab iyo albaabada adag iyo arabtaan dhagax iyo waan ku faanaaba waa wax wada adag mar haddaan dhadiguna la odhanahayn maasha allah alxamdu lilah afarta noo dhaleena waanu weligeed iyo allaheed nin sacad muuse dhalo arabo taliyana lama arag cimriga hadda waa reerkaanu jaarkana iskugu wada xigno mi aragteen weligii nin sacad muuse dhalo arabo taliya waliyo bile ka tay inaan islaam daayo ummad daayo ilaahay aayad qur-aan ku sheegin awr halaabe ma weydiinaba waxay dhaleen kay noo dhalaana wuxuu ka shaqeeyaa un munaafiqad wax kalaba kama shaqeeyo laakiin ragga adeer ragga ah ee arabi cawaandiyiinta adeer rag baa dhalay raggii arabe kabaha kaa subkaday ee degada qoryaha kaaga gebigooda wada garxays baa dhalay weligii ma aragtay nin habar oo dhasho wasiir noqda ama janan waliyi bile ka tay ama sarkaal ciidanba ama korneelba lama sheegin dee markaa maxaan ku wada hadlaynaaba kuwa war aad baan idiin salaamaya aada iyo aad baan idiin salaamayaa meel kastoo kala joogtaanba asxaabtaygu qaaliga ah aad baan idiin salaamayaa